مسؤولين كسعودة wasaradaha maamul mashruuca GPLG sidoo kale hay'adaha gacanta ka geysan mashruucani ayaa kulan saaka la qaatay mas'uuliyiinta dawladda hoose Berbera kulankan oo ahaa qiimayn sidoo kale dabagal isla markaana uu barbar socday kormeer kala duwan oo lagu soo marayay qaar kamid ah xarumo waxbarasho iyo caafimaadka oo kamid ah miraha ka dhashay mashruucan GPLG xogayaha dawladda hoose Berbera Cabdikariin Aadan Siciid Cabdikariin Aadan ayaa halkaasi ka sharaxay waxyaalaha ka dawladda hoose ahaan lagu majeeranayo ee laga maalgeliyay mashruuca GPLG runtii sharaf weyn bay dhamaanteen inoo tahay inaan isugu nimaadno shir kale oo kamid ah shirarkii iyo kormeeradii aynu ku sameyn jirnay mashruuca GPLG-ga oo guud ahaan dalka oo dhan ka socda gaar ahaan magaalada Berbera lagu soo booqateen waxaan dhamaanteen ku leenahay soo dhawaada magaalada Berbera ilaahay baa mahadle dhamaanteen iskeen fahamsiiyay halka waxay noo marayaan waxaan filayaa inaan ku qanacsanay dhamaanteen wanaagsan tahay laakiin si aynu geedigana hore ugu sii wadno dawladda hoose ee magaalada Berbera waxa ka go'an iyo xildhibaanada golaha deegaanka inay si fiican idin la shaqeeyaan inaanu labanlaamno shaqadaanu hayno waliba waxaa noo qorshaysan maadaama aad wadadii iyo systemkii maamulka aynu iswada tusnay maxay tahay inaanu mas'uuliyadda qaadano si buuxda waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa wasaradaha waxbarashada iyo caafimaadka oo runtii in badan oo kamid ah maxay tahay shaqadii heer degmo u soo dhaadhiciyay waxa kale oo ku dhiirigelinayna wasaradaha wali ka maqan nidaamka maamul dajinta iyadoo ay hooyo noo tahay anaga wasaaradda arrimaha guduhu aanu ka tirsanay hoos tagno inay maxay tahay iyagana u wanaagsan tahay nidaamkeena dawliga ay u fiican tahay in adeegyada cidda fulin karaysa budgetkeeda haysa maxay tahay shaqada qaban karaysa loo soo dhaadhiciyo agaasimayasha guud ee wasaradaha waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha gudaha oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa boogaadiyay dawladda hoose Berbera barnaamijka GPLG-ga ujeedadiisa marka la soo koobo waxa weeyaan in adeegii la gaarsiiyo dadka sida ugu fudud uguna tayada badan leh barnaamijkan hadda waxa iska kaashaday dawladda dhexe iyo dawladda hoose ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo hay'adaha caawiya ee waxbarashada caawiya ama caafimaadka caawiya ama adeegyada kala caawiya maamul dajinta waxbarashada runtii marka loo eego sector-iska kale waa taw ugu weyn ee runtii si loogu talagalay hirgasho waxaan ballan qaadanaa inta ay ka badan inaan sii daadejino waxaynu joognaa maanta MCH-kii Moscow MCH-kani waa mid ka mid ah MCH-yada ay ka socdaan maamul dajinta ee ay guud ahaanba wado dawladda hoose ee degmada Berbera MCH-kan marka la eego gabi ahaanba haday noqoto shaqaalaha mushaharkooda ama incentive-ka shaqaalaha la siinayo daawada running cost-ka iyo activity-yada kale ee ka socdaba xataa haday tahay outreach waxa ay hoos tagtaa ama bixiya dawladda hoose ee degmada Berbera iyadoo oo ku shaqeynaysa guideline-ka iyo macluumaadka wasaaradda horumarinta caafimaadka halkan aynu taaganahay waxa weeyaan ambulanskii MCH-kan Moscow ambalanskan oo isagana ay u keentay oo ay u soo iibisay dawladda hoose xarun kale ee jaamalayna mid kale ayaa jira ma aha uun gaadiidka qura ay ku dartay dawladda hoose laakiin gaadiid badan ayaa ay ku dartay u hadlay magacii wasaaradda arrimaha gudaha oo dawladaha hoose oo dhammi hoos yimaadaan mashruuca maamul daadejintana nuxurkiisu yahay in la daadejiyo adeegyada runtii warbixintii halkan ay ku soo bandhigeen reer Berbera maanta waxaa ka muuqata horumar weyn inay hanteen hagaajinta adeegyadii caafimaadka iyo waxbarashada ee ay u qabanayeen dadweynaha nuxurka barnaamijkuna waxa weeye in dadweynuhu dareemaan horumar in laga sameeyay dhinacii waxbarashada iyo caafimaad mas'uuliyiintan ayaa intay ku sugnaayeen magaalada Berbera waxa ay kormeer ku soo mareen goobaha waxbarashada iyo caafimaadka ee gacanta ku haysta dawladda hoose Berbera kuwaas oo qayb ka ah mashruucan maslax sidde Eryal TV Berbera adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida